waxbarasho aqoontu waa tan maanta dunida u horseeday inay noqoto hal degmo horumar ballaaranna ay gaadho. bulsho kasta oo deegaan ku nool waxaa waajib ku ah inay deegaanka ay ku nool yihiin ay ku helaan waxyaabaha nolosha aadanahu aysan ka maarmin. dabcan aadanuhu haddaysan helin biyo iyo cunno qofku ma noolaan karo, balse intaas keliya in lagu noolaado laguna ekaado macno nolosha uma samaynayso. intaas oo nabadgelyo leh haddii la helo bulshada waxaa waajib ku ah inay hesho waxbarasho, caafimaad iyo horumar la jaan qaada dunidan casriga ah ee aynu maanta joogno. aqoontu waa tan bulsho kasta ay horumar ku gaadho, taasoo qayb weyn ka qaadata horumar kasta oo bulsho gaadho amaba ay higsanayaan. in badan oo ka mid ah dalalka horumarka sameeyey waxyaabaha horumariyey waxaa ugu horraysa aqoonta. soomaalida inteeda badan aqoontu waxay bilow fiican gaadhay wixii ka dambeeyey xorriyadda Soomaaliya kadib 1960kii, taasoo aakhirkiina la duntay burburkii dawladnimada Soomaaliya. intaas kadib way adkayd in marka laga tago magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya in waxbarasho tiirar adag ku taagan in laga hirgeliyo tuulooyinka iyo deegaanada ka fog magaalooyinka waaweyn. Buursaalax waa deegaan hoostaga degmada Galdogob ee gobolka Mudug, Puntland. deegaanka Buursaalax 15 sano ka hor ma lahayn dugsiyo waxbarasho, goobo caafimaad, biyo nadiif ah, koronto. maantana intaas baa horumar ayaa laga sameeyay. waliba waxa uu sii dheer adeega loo yaqaano internet. markii shirka laga bilaabayay mashruuca laga bilaabayay waxay meel baadiyo oo xooluhu daaqabay oo Kenya runtii dadka qaar anaha dadka markaa reer Buursaalax ahaa waxay runtii dadkan magaalada meeshan ma horumarkan magaalada san ma dadka waxa la beertay joogay sidee ayuu ku yimid horumarkan? yaa gacan ka geystay? sidee ayuu ku bilaabmay? xilligan halku maraya? su'aalahaas iyo kuwa kaleba waxaan ku eegi doonaa barnaamijkan oo si qoto dheer u dul istaagaya mashruuca horumarinta isku tashiga ah oo ay hindiseen qurba joog u dhalatay deegaanka Buursaalax kaasoo soo bilaabmay sanadkii 1999.